دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله. سلام كديب شرفة إيتا عاوة إن على ذيك الله سو غايب قالوا مناسبة دان نحسوسنا إيسا ديبو يغلالي دي دولة نمدا الصومالية 20 سنة كديب runtii wax badan ay ka soo sheekeeyeen dadkii ka qayb galay shirkaas oo xilligaas ilaa hadda dawladihii isxigxigay daadihinay xaqiiqdii wax badan ay sheegeen mudane Ismaaciil Cumar Geelle ee shacabkiisa reer Jabuuti waxa lagu xusuustaaho aad ay u badan yihiin waxa lagu xusuusanayaa waa dhammaan abaal ay gashadeen walaalahooda Soomaaliya markii burburka Soomaaliya uu dhacay 1990kii gogashii u horeysay oo dawladdii Soomaaliya ee 22 sano jirtay ay duntay waxaan ognahay gogashii u horeysay inay u dhigeen jabhadihii Soomaalida ee iska soo wada horjeeday markaasna dawlad ku meel gaar ah halka lagu soo dhisay balse isla dagaalada sukay ay ku sii duntay isku day kale oo la sameeyay oo lagu guuleystay ay dawladda Carta marka waxaan dhihi karaa 90kii burburkii dawladda Soomaaliya ilaa bisha hadda lagu jiro waxaan ahayn dad walaal leh aan sina loo dayicin la koolkoolinayo mar walba xoogaa ay meel ka dabcaan laga toosiyo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala hawnoodaayo Ismaaciil iyo shacabkiisa sidoo kale dadka reer Muqdisho oo dawladdii ku meel gaarka ahayd kadib dawladdii 22 sano jirtay markay dhacday lagu soo dhisay Jabuuti soo dhaweynteedii dhibaato badan oo ka gaartay tii Carta soo dhaweeyay dhibaato badan oo ay ka gaartay tii Imbagaadi soo dhaweeyay dhibaato badan oo ay ka gaartay ilaa haddeertaan dawladdan hadda u dambeysay aan xilligan aan ognahay inay u dhimanayaan dawladda darteed ayagana waa uga mahad celinaynaa waana xasuusanaynaa waxaan si gaar ah rabaa halkaa inaan ugu mahad celiyo xildhibaanada golaha shacabka iyo mas'uuliyiinta kale ee sida aadka ah isugu howlay inay wax oon abaalmarin ah bulshada halkan ku nool ay u asteeyaan runtii waa victory waa taariikh lama ilaawaan ah bulshada gobolka Banaadirna ma ilaabi doonaan baarlamaanka 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya runtii waxay ku dhiiradeen wax ay ahayd in mar hore lagu dhiirado balse ay ku guul daraysteen ama ay u suurageli weyday xilliyo kala duwan baarlamaanadii iyo madaxdii markaas joogtay waa xaqiiq waxay ahayd in lagu dhiirado xilliyo kale oo isku soo dayga ama isku soo qaadku uu jiray laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qadaray inay xildhibaanada hadda jooga
golaha shacabka inay arrintaas ku guulaystaan. ilaahay baa mahad leh. walaalayaal, anigoo ku hadlaya bulshada gobolka Banaadir iyo shacabka caasimadda, kama daali doono inaan u dhimanno, inaan dhaxan ay noogu dhacdo, inuu dhadi ama qorrax ay noogu dhacdo u dheedhinta dowladnimada Soomaaliya. magaalada Muqdisho ilaa xilligii gumaysiga uu dalka soo gelayay, ilaa xilligii la dagaalamayay, ilaa xilligii dowladnimada la difaacayay, mar walba magac iyo taariikh ayay ku lahaayeen. xumaan kasta oo timaada ka hortaggeeda. waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalkiinna u heelinta qarannimada iyo dowladnimada wada. inta aan anugu xilka hayo ama nafta igu jirtana middaas ayaan garab istaagi doonaa insha Allah. walaalayaal, mas'uuliyiinta xafladdan isku soo dabariday oo kow ka yahay Maxamed Cabdi Maareeye, Maxamed Cabdi Xayir, iyo wasiirada kale, mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay, dhammaantiin waan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalkiinnan. waxaana rajaynayaa sanadkan kiisa xiga inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo bashbash. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.